waxa aan doonayaa inaan ka hadlo arrin inagu soo noqnoqota oo u baahan xaqiiqadeeda in laga salgaadho. waa amuurta ku saabsan Somaliland kolkii ay xorriyadda ka qaadatay gumaysigii Ingiriiska 26 Juun sanadkii 1960 ma noqotay dowlad xor ah oo jirta oo beesha caalamka ka mid noqota oo la aqoonsan yahay. amuurta intaanan u gondadegin aan wax yar oo hordhaca ka horraysiiyo. xilligii gumaystayaasha reer Yurub ay soo galeen waddanka Soomaalida uma dhexaynin wax xuduudo ah oo dhulkoodu waxa uu ahaa mid isku furan oo aan markaasi xuduudo lahayn. markii haddaba gumaysigu yimi arlada Soomaalida ee uu xuduudaha u sameeyey ee uu kala qaybiyey waxaa markiiba bilaabmay halgan iska caabin ah oo dadka Soomaalidu ay ku diidanayeen amuurahaasi gumaysigu la yimi. halgankii ugu horreeyey waxaa bilaabay sayid maxamed cabdilaahi xasan oo hogaamiyey ciidankii daraawiishta la baxay oo markaasi saddexdii gumaysi ee arlada Soomaalida xilligaasi joogay Geylan iyo dagaal weyn ku qaaday. waa Ingiriis, Talyaani iyo Abasiiniya. halgankaas waxaa isna soo raacayay Xaaji Faarax Omar Ileeye oo isna markaasi xuquuqda iyo gobonnimada dadka Soomaaliyeed u doodayey una halgamayey. Sheekh Xasan Barsame ayaa isna koonfurta ka kacay oo jiidda ku ologale Marka iyo Muqdisho markaasi dagaal ka galay. Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf ayaa Burco ka kacay isaguna xilligii dagaalku dhammaaday waa dagaalkii labaad oo gumaysiga ku gabagabeeyey. xilligii haddaba uu sii dhammaanayey dagaalkii labaad ee adduunku waxaa adduunka saaqay neecow gobonnimo doon ah oo markaasi ka bilaabantay dhulkii ama dhulalkii gumaysigu haystay. dhinaca Soomaalida waxaa ka aasaasmay ururkii SYL oo ahaa urur weyn oo markii dambena Soomaalida oo dhan dhulalkeeda ku faafay laakiin koonfurta ka bilaabmay. geesta waqooyiga waxaa ka jiray SNL, USP iyo markaasi ururkii kale ama xisbigii kale NUF. hal kudhigyo iyo halqabsi isku mid ah iyo ujeedooyin isku mid ah ayaa halgankaasi lahaa labada geesoodba haddii ay noqoto koonfurta iyo waqooyiga iyo dhulalkii kale ee Soomaalida ee gumaysigu haystayba. waxaana halhays u ahaa halkudhigii Faarax Omar ee dhulkaygu waa ka yaryahay wax la qaybqaybiyo dadkayguna wuu ka itaal daran yahay in la rarto. dadka Soomaalidu waxay galeen xornimo iyo midnimo ay ku goobayaan shanta Soomaaliyeed oo meel la isugu keeno. waxaa isku xidhnaa markaasi dareenkooda waanay iska warhayeen oo meel kasta iyo gobol kastaba waxaa ka jiray qorshe iyo hanaan ay isugu heelinayaan. haddaba markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunku intii uu socdayba waxaa dhulalka Soomaalidu ay gacanta u galeen gumaysigii Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo ku jirtay gacanta Faransiiska oo ay Ingiriiska markaasi xulafo ahaayeen. mustacmaradii Ingiriisku waxa ay soo dejisay qorshe markaasi ay doonayso inay ku midayso gobollada Soomaalida oo ay gobonnimo ku gaadhsiiso islamarkaana ay iyadu abbaan u noqoto. waa fikirkii weynaa ee Soomaali weyn. haddaba sida Jimciyadda Qaramada Midoobay berigaasi ay soo jeedisay ee ahayd in waddamadii dagaalka ka hor gumaystayaasha ku hoos jiray lagu celiyo gumaystayaashii haysan jiray ayaa waxaa dhacday in dhulkii koonfurta ee Talyaanigu jeestay dagaalka ka hor afti laga qaaday lagu kala dooransiinayo ma Talyaani baa laydinku celiyaa mise Ingiriiskan idinla jooga ayaa idinsii haya oo 10 sano ee soo socda gobonnimo ina gaarsiiya. ayaan daro kooxdii ka midka ahayd xisbigii SYL ee Talyaani raaca ahayd ayaa waxay u ololeysay in Talyaanigii jabay dib loogu celiyo markii hore gumaysanayay koonfurta Soomaaliya. taasi ayaana dhacday oo Talyaaniga ayaa gacanta dib loogu celiyey dhinacii koonfurta oo gobonnimo gaadhsiinayey markaasi. Ingiriisku waxa uu markaasi sameeyey aargoosi waxaan u kala daadiyey qorshihiisii Soomaali weyn. NFD waxa uu dib ugu celiyey oo ku sii fogeeyey dhinaca Kenya inay ka tirsanaato. dhulkii aagga kaydsan ee hawd aan reserve area waxa uu ku daray oo siiyey Abasiiniya. Jabuutina waxay ku sii fogaatay gumaysigii Faransiiska.
arrimahaasi waxaa ka dhashay cadho iyo gadood weyn oo dadkii soomaalida markaasi la soo kulmay waxaana taasi ay cirka u soo baxday 28 February 1954 markii dhulka Reseferia Abyssinia gacanta laga geliyay waxaana dadku markaasi ay doonayeen in dhulka Soomaalidu uu wada jiro oo aan la sii kala qaybin marka gobonimo la qaato waxaana hanqalka la soo kacay gobonnimadoonkii laablakac weyn oo xornimo iyo midnimadoon ahina oo isku sidkarina markaasi wuu bilaabmay dhinaca waqooyiga 17 bishii 1960 waxaa ka dhacday doorashadii golaha sharci dejinta Somaliland oo ay ka soo baxeen 33 xubnood oo baarlamaanihii oo 4 wasiir markaasi laga dhex doortay shirkoodii ugu horeeyay waxaa golahaasi sharci dejinta uu yeeshay intii u dhaxaysay 4 ilaa 6 Abriil 1960 waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa ninkii Ingiriiska wakiilka ugu ahaa mustacmaradda Somaliland Douglas Hall iyo xogayihiisii Philip Carrell golaha sharci dejinta Somaliland waxa uu xilligaasi soo saaray go'aan hoosta ka xariiqayay in gobonnimo la gaadho oo markaasi midnimana lagu sidko oo aan labadaasi laga dhigin laba shay oo kala reeban oo aan isku mid ahayn laakiin uu noqdo isla hal qodob oo qura oo laga wada xaajoodo xornimo iyo midnimo wafdi amuurtaasi kala hadla mustacmaradii Ingiriiska ayaa loo diray magaalada London ee waddanka Ingiriiska waxaa wafdigaasi uu kulamo kula yeeshay 2 ilaa 5 bishii May 1960 magaalada London xogayihii mustacmaradaha UK wafdigaasi Soomaalida amaba Hargeysa ka yimi waxaa hogaaminayay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaana ku wehelinayay Axmed Kayse Xaaji Ducaale Garaad Cali Garaad Jaamac iyo Xaaji Ibraahim Nuur Jaamac waxaanay halkaasi keeneen go'aankii uu 6 Abriil gaadhay golaha sharci dejinta ee Somaliland ee ahaa xornimo iyo midnimo wada socda oo isku hal qodob ah oo aan la kala reebi karin haddaba amuurtaasi waxaa si weyn u cadaynaya haatan hadal uu BBC-da markaasi waa May 1960 uu u duubay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo wafdigaasi hogaaminayay waxaanu yidhi sida aynu goordhowba arki doonno waxa aanu hadalka guntiisu ahaa in bisha Julaay 1 aynu dowlad ahaano si aynu walaalaheenna koonfureed isu raaci karo hase yeeshee gumaysiga Ingiriisku waxa uu soo dedejiyey Gobannimadii waxaanu 26 Juun 1960 u qoondeeyay inay noqoto maalinta uu ka kacayo dhulkii uu gumaysanayay ee Soomaalida ee waqooyiga halka 26 Juun waxaa ka dhalatay xornimadii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee markaasi gumaysi laga qaato waxaana calanka buluuga ah ee xidigta cad ee shangeesta ah ee shanta Soomaaliyeed u taagan laga taagay magaalada Hargeysa 29 Juun 1960 waa 3 cisho kadib markii gobonnimada la qaatay waxaa magaalada Hargeysa ka boqolay 33 xildhibaan oo 4 wasiir ku jiraan iyo madaxdii kale ee gobolka lagu wareejiyay oo dhinaca magaalada Muqdisho u boqolay oo diyaaradu raacay ma jirin dowlad laga dhisay Hargeysa oo beesha caalamka ka mid noqotay oo la ictiraafay ama aqoonsi la siiyay sida uu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal cadayn doono goordhow waxaana markaasi aan jirin madaxweyne la doortay oo aynu ognahay mana jirin ra'iisul wasaare waxa ayna xusid mudan jaraa'idkii maalintii ka dambeysay ee 27 Juun 1960 ka soo baxay magaalada London oo ah halkii Somaliland xorriyadda laga siiyay ay fooda hore amaba bogaga hore ku xambaareen hadal u ekaa oo sidan ahaa dadkii diiday madax bannaanidooda waxa la diiday madax bannaanida iyo in la noqdo dal madax bannaan oo markaasi yeesho dowlad ka mid noqota beesha caalamka waxaana taas loo sadqaynayay wax kale ma ahayn waxay ahayd midnimo Soomaaliyeed iyo Soomaali la isla doonto
maxamed xaashi ibraahim cigaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye hadalkii uu 5 May ka jeediyey magaalada London 1960 ayaa arrintaasi daaha ka faydaya sidii ay ugu soo rafaadeen gobannimada dhibaatadii ka soo qabsatay rag iyo dumarba sidii loogu xusulduubayay iyo maalintii aynu maqalay gobannimadeennii inaynu helay sidii farxaddu ay noo qaaday waxaynu dhammaanteenba wada xusuusannahay bishii May 5 1960 markii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu magaalada tan London wafdi uu soo horkacay ee uu kala soo tabaabulshaysanayay dowladda tan Ingiriiska sidii waqooyiga gobannimo loo siin lahaa garanan maayo ama ma hubo intiina maalintaasi idaacadda tan BBC-da ee af Soomaaliga oo maxamed xaaji ibraahim ka hadlay khudbadaasi taariikhda gashay bishii May 1960 ee uu halkan ka akhriyay intiinii dhageysanaysay hase yeeshee maanta teebkii hadalkaasi uu ku duubnaa oo aanu boorka ka tunnay ayaanu 9 sannadood dabadeed soo saaray waxaanu maanta idinku casuumaynaa bal inaad dhegaysataan erayadii qiimaha lahaa ee uu idaacadda tan af Soomaaliga ee BBC-da uu ka sheegay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd secretary secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan maleynaya maalintii Isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxaan ma dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahdaan asahatee in meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay labadii casho horaan saragnayba baadniinun arrinku la baarayay dadka meesha jooga iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baarayay bixi dabeetana markii taas cadaatay maalintii Arbacadii galinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dabeetana khudbadan marka la sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1 July 1 inaynu dowlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxay hayday joognaa madaxeedii asahatee midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa dowladnimo loo qayliyaa dowladnimada doonayna la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deennaba soo qaylinay helay dowladnimadiina asahatee ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dowladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii horeeyay ayayna maanta helayno weyn garayn kuna jaxnay kamaanta inagu hadhayna kii ka weynaabo waxa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay hayday qoontiisi dhaayo ayuu yiri baa la yiri dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana imika soo galay asxaabtii wada naxday baa leeyahay markaas la yiri yaa rasuulullaahi dagaalkan maanta galay mid ka weyn ma aan filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aan soo galay midaynu cadow la dagaalamayay buu haabiyay kaynu maanta galayna imika galayna inoo hadhayna waxa weeye kaynu nafteena la dagaalamayay wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaynkaas way naga tagay July maalinta July baynu walaalin Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna markaana ku hadhay baa hawl haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leeynaga bixi ajnabi inagii maanta leeyno kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay